koox xildhibaano wasiiro iyo bulshada xaafadda ka kooban ayaa ku howlan xirista dhul u nugul fatahaadda webiga oo ku yaala jiinka webiga Shabeelle ee Jowhar. wasiir ku-xigeenada maaliyadda iyo warfaafinta waxa uu helinaya xildhibaan Yuusuf Karaani iyo gudoomiyaha xaafadda Kulmis waxayna dhammaantooda ay ka wada shaqeynayaan barnaamijka isxilqaan oo la xiriira wax ka qabashada fatahaadda webiga Shabeelle. gudoomiyaha xaafadda Kulmis iyo xildhibaan Yuusuf Karaani ayaa ka waramaya ahamiyadda goobtan. waxaan jecelnahay marka afarta xaafadood oo degmada Jowhar in ay isku mashquuliyaan sidii webigaani diiradda loo saari lahay ilaan waxaa la yiri far kaliya fool ma dhaqdo ganacsatada haddii garab istaagto dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane madaxweyne haddii aadna garab istaagtid annagana horeyaan u socoynayna governorka sidoo kale DC-ga haddii garab istaago wax badan ayaan qaban karnaa horumar oo meesha la taaban karana way ka soo bixisay. qof kastana waxaan faraynaa ama iska codsanaynaa wax tabarteeda tahay waxay awoodo kii xabadtiir noo kaalmay karo kii loor noo gadi karo kii kunkashin oo barafka ciyaalkan hadda xoogooda maxay dhan sadaqaysanayeen maxay dhan galaaska biyaha cabaan qofkan oo kaalmay karo waxaan kuligaynaba u garab istaagno inaan meehan wax ka qabano. wasiir ku-xigeenada warfaafinta iyo maaliyadda Hirshabeelle mudane Cabdishakuur Shaashaa iyo xildhibaan Cumar Gaawow ayaa isaga kala dambeeyay khudbado baaq la xiriira nidaamka isxilqaan. meeshan hadda aan joogno waxay ka mid tahay labada gow webiga way go'an tahay oo waxay halis u tahay in xaafadii Kulmis ay u gudbiso biyaha xilligan oo kale waxaa soo dhow xilligii webiga uu imaanayay waxaana imaanayo biyo xoogan haddii marka aan laga taxadarin goobaha sidan oo kale biyahaas hadda maqnaashooda dadku dhibaatay ku qabaan oo beerihii iyo tacabkii iyo noloshii ayay muhiim u yihiin hadhow markay yimaadaanna waxaa dhacaysa inay dadkii dhibaateeyaan oo ay ku fatahaan oo ay xaafadihii galaan oo ilmihii qaadaan oo ay xaasaskii qaadaan oo ay guryihii baabi'iyaan oo raashinkii baabi'iyaan sidaas darteed ayaan hadda u samaynaynaa inaan ka taxadarno gudoomiyaha xaafadda Kulmis qeyralaha siiyo ayaa isku xilqaamay barnaamijkan isaga oo kaashanaya dadka xaafadda iyo mas'uuliyiinta xaafadda degan ee dawladda Hirshabeelle oo aan inaga ka mid nahay qof walba oo reer Jowhar ah oo haddana reer Kulmis waxaan ugu yeeraynaa inuu ka qayb qaato in dhinac kasta oo webigan uu ka furan yahay uu laga xiro oo si wada jira looga xiro. waxaa cabsi laga qabaa in uu webiga biyo keeno marka gudoomiyaha xaafadda oo halkan noogu yeeray asoo shaqadii ka bilaabay in uu si mutataacnimo ah meesha shaqo looga qabto wuxuu annagana noo wacday inaan garbihiisa noqono aad iyo aad aan ugu faraxsannahay in maanta xaafadii Kulmis shaqaynayo si mutataacnimo ah sidaad u jeediin meeshaan sidii buq camal in loo xiray tagtay oo hadda waxaa lagu xirxirayaa tiirar waxay u baahan tahay meeshaan haddaan gudoomiyaha weydiin wuxuu noo sheegay inuusan asoo wax bahaynin uu shaqadii bilaabay asoo ku tashanayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka degan degmadan Jowhar inay ayaga ku bixi doonaan wixii meeshaan galaayo sidaad u jeediin meesha hadda tiirar kaliya yaali iyo wax yaroo jawaan hortayna kistaan yaroo jawaanto hortayna taala ayaa lagu bilaabay saas darteed ganacsatada maamulka degmada kan gobolka state-ka dhammaan waxaan u sheegaynaa la soo garab istaago gudoomiyaha xaafadda Kulmis oo si mutataabacnimo ugu shaqo bilaabay xaafadan. ka shaqaynta jiinka webiga iyo samaynta biyo xireenno ayaa qayb ka ah dadaalada looga hortagayo fatahaadda. maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa Universal TV magaalada Jowhar.